munaasabadan ulajeedka laga lahaay ay ahayd sidii lagu soo afjari lahaa dagaal beeleed in muddo ku soo laalaabanayay qaybo ka tirsan gobolka Hiiraan ayaa maanta waxay ka dhacday magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan iyadoo munaasabada lagu soo xirayay heshiiskii ay gaareen beelaha walaalaha ay ka soo qayb galeen xubno ka tirsan maamulka heer gobol iyo heer degmo saraakiisha ciidamada Amisom iyo sidoo kale doobka dhaqanka gobolka Hiiraan ugu horeyntii munaasabada waxaa ka hadlay qaar ka tirsan odayaasha labada dhinac oo ayaga heshiis kala dhaxdhigay iyo waliba sidoo kale gudigii odayaal dhaqameedka ahayd isla markaana 30 maalmood aan soo dhaafnay ku mashquulsanaa xalinta khilaafaadkaasi oo reerkiigan oo lagu soo baxday ciidamada Amisom ciidamada qaranka sidoo kuwa booliiska gudiga dib u heshiisiinta Hiiraan labada beelood dowladda gudigooda dadweynaha dhageysanaa waa salaam alaykum warahmatullahi wabarakatuh salaadii badan hadaa warbixin yar bixiyo bishii dhamaatay 22 nima walaalaha oo wada dhashay oo isku degmo ah degmada Beledweynena kala degan galbeedka ayaa isku dhacay reer Hiiraan isku ma fiirsan waa soo baxeen inay walaalahood kala celiyaan markaan u talbay oo kii xabad rida iyo kii odaga beledka naga raacaan isku raacay u qaaday maslaxadii nabadii waan u qaaday wixii qumuud oo jiro ama war oo ku jirana kulay waa gudigan dib u soo weydin doonaa assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh وعليكم السلام يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من ذكره أننا وحنا قدوميك هاي بتيجي بيش تجيله dadka walaalka oo lagu dhex jiro 32 cisho ayay dhex taagtay iyo ciidamada kala qaaday oo buurahaas ugu tagay oo naftooda u halligay dhammaan waa mahadsantihiin anigoo ku hadlaya magaca guddiga beesha Jijeele wixii masaalaha oo guddigaas gaareen waa aqbalnay waan ku dhaqmaynaa insha Allah sidoo kale goobta waxaa ka hadlay saraakiil ka tirsan ciidamada Amisom kuwaas oo bagaadiyay heshiiska ay gaareen labadii beeleed ee in muddo dirirtooda ay ku soo laalaabatay qaybo ka tirsan dhinaca galbeed ee gobolka Hiiraan kulli wada salaam alaykum waxaan ku hadlay laba qodobba qaali mid waa farxad midna waa shaqo farxad weeyaan waayo جودي بلبان إليني عرمها في نظريتها لما بيرو جودي بلبان كشيء إبرام بانها جلّي إبرام بيسوي بتيسي لكن ما توه الوقت هاي يجيب بشيء الوقت هاي سنة بقطع واحد يجيب بشيء الوقت هاي واحد لما هذا إسكال لو إبرام بيرو لي بدنيا تسوي لي بدي يبرش كان حادث كوهبة الإدار أفضل لي أو قلبنا قصود درس الأخير ugu dambeyntii hadalka waxaa qaatay gudoomiyaha gobolka Hiiraan ee dowlad goboleedka Hirshabelle Mudane Cali Jeete Cusmaan asigoona beelaha ugu mahadceliyay sida wanaagsan ee markaasi ugu soo baxeen heshiiskii maanta 30 bir kadib ay gaareen beelahaasi heshiiska qodobada loo aqriyay oo labada dhinacna aqbaleen kaasana nagu ilaalinayna haddii Allah nimankan hareerahayga fadhiya maalin walba wiilashooda halkaan ay ku dhintaan hamoodinina inay yihiin niman hadda heshiiskaan aan qayb ka ahayn horta waxaan rabaa inaan idiin fasiro sababta nimanka hareerahayga fadhiya way u soo fadhiisteen meesha inaan idiin fasiraan rabaa كان الكوار ما ولا تعلم بديه الآن ولا شو يقول حق بيقولي حتى كل اللي راعي تكابون اللي قلت سويت فيها الحق بيقولي أنا كنا وقف صحينا وأنا كعطينا وأنا قامرنا كم أمران إن عدي نبتكلم كهر إيمانيسا رقي قار لقبته لقنا فرتكو أمر بحيل قرآن عبد الشكور محمد حسن وبر تي في بلدوين.